إليك أنت صباحي مصفد بمسايا. وحان السجن إنه رسولك صلى الله عليه وسلم يلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديثك صحيح كوي من حديث أنس كوح صحابة كمدة أيها قريها النبي صلى الله عليه وسلم markaasay dumarkii waxay warsadeen cibaadada nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo cibaadaysto markaasa loo sheegay xilligaas uu toosa xilligaas uu tukada muddadaas uu sooma cibaadadii baa loo sheegay fakaannahum taqallawha waxad mudda inay yaraysteen markii loo sheegay waxoogaa way la yaraatay markaasa waxay yiraahdeen oo anagu ma nabiga la midna nabiga dambigiisa yoorikii dam waa la dhaafay ma isagoo kala anaga waayna wax weyn la nimaadno badinno mid baa soo boodo wuxuu yiri anigu waligiis waan soomananaya ma ba afuray mid kalena wuxuu yiri aniguna waligii habeen oo dhan waa taagnaanaya ma ba seexanahay midna wuxuu yiri aniguna dumarba guursan maayo guurba waa isaga hajirayaaba waa ka zaahiday midna wuxuu yiri aniguna hilibka cuni maayo nabigu sallallahu alayhi wasallam warkii baa soo gaaray war ma idinka sidaas yiri ha anagaane markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam anigu waxaan ahay midka ilaahay idinku yaqaan idinkuna cabsi badan baan ahay buud saay tahay habeenka qaarna waan seexan qaarna waan soo toosi waa cibaadaysan maalmaha qaarna waan soomi qaarna waan afuri hilibkana waan cuni dumarkana waan guursan sunnadayda iyo dariiqayga ninkii ka leexdana oo nacana iga mid ma habu nabi sallallahu alayhi wasallam soomaart waa tazawwaju nisaa dumarka waan guursan guurka ninkii ka leexdana oo garab maro naca oo nacana iga mid ma habu rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka war sunnatul anbiya khaasatan wa sunnatu nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam